kulan wacan daawad waxaad ku soo dhawaataa janaalka Lewaya Films oo aad ugu baratay inaad ka dhageysato ama aad ka daawato warbixinadii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. maqaalkeenan maanta waxaan ku eegaynaa 10 fanaan ee ugu horeeya Bollywoodka iyo halka hees lacagta ay ku qaataan. fanaaniinta ayaa Bollywoodka waxa ay kaga jiraan kaalin muhiim ah, waayo halkii film waxa ku jirta 5 ilaa iyo wax ka badan oo hees ah, halka tirishooyinka ama atorooyinka ee afka ay la raacaan. haatan kuwa caansan waxaa ka mid ah Arijit Singh, Shreya Ghoshal iyo sidoo kale Mika Singh, waxaana kaalin muhiim ah ay kaga jiraan liiskan. Neha Kakkar waxay ka mid tahay heesayaasha ugu caansan Hindiya, weligeedna ma sameynin hees flop noqotay, laakiin liiskan kaalinta 10aad ayay kaga jirtaa. waxaana asna la mid ah fanaanka reer Punjab ee Guru Randhawa oo asna aanan sameyn wax hees flop ah, laakiin kaalimaha liiskan kuma jira. haddaba aan isla aragno sida ay kaalimaha ugu kala jiraan, waxaana ku jiraan fanaaniin caan ah oo aad taageer u tahay. kaalinta 10aad ee liiskan waxaa ku jirta Neha Kakkar. xidigtan ayaa halkii hees waxay ku qaadataa 10 ilaa 15 leeg. nambarka 9aad waxaa ku jira Sonu Nigam, wuxuuna heesaa ahaa muddo 20 sano ah, waana mid ka mid ah kuwa ugu codka macaan. xidigan ayaa halkii hees wuxuu ku qaataa 10 leeg. nambarka 8aad waxaa ku jira Meet Bros, waa laba walaalo oo heesayaal iyo sidoo kaleba muusikiistayaal ah, waxaana halkii hees ay ku sameeyaan ama ay ku qaadaan 12 ilaa 13 leeg. nambarka 7aad waxaa ku jirta fanaanada caanka ah ee Sunidhi Chauhan. xidigtan ayaa halkii hees waxay ku qaadaa 9 ilaa 11 leeg. nambarka 6aad waxaa ku jira Atif Aslam, waa fanaan reer Pakistan ah laakiin ka xamaasha Bollywoodka. fanaankan ayaa halkii hees wuxuu ku qaadaa 7.5 leeg. nambarka 5aad ee liiskan waxaa ku jira Sukhwinder Singh, waa fanaan muddo ku jira fanka Hindiya, wuxuuna halkii hees ku qaadaa 9 ilaa 10 leeg. nambarka 4aad waxaa ku jira fanaanka reer Punjab ee Mika Singh, wuxuu halkii hees mushaar ahaan u qaataa 12 ilaa 13 leeg. nambarka 3aad waxaa ku jira fanaanka Arijit Singh, waa fanaan cod macaan leh, wuxuuna halkii hees ku qaadaa 13 leeg. nambarka 2aad waxaa ku jirta Shreya Ghoshal. xidigtan ayaa halkii hees waxa ay lagu siiyaa lacag dhan 18 ilaa 20 leeg. nambarka 1aad waxaa ku jira fanaanka heesaha raabka ah qaada oo Hindiya caanka ah, waana fanaankeena in heesaha raabka ay ku lug yeeshaan Bollywoodka, waa Yo-Yo Honey Singh, wuxuuna halkii hees ku qaadaa 70 leeg. intaas ayaan ku soo xiraynaa warbixintanan. haddii aad ka heshana la wadaag asxaabtaada.